السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داود يال بيل كستا او ادافع عالم كان نغا داوريسان maxaan maanta idin wadaa oo idin wadaagi doonaa waxaan anigu mar walba jecelahay inaan idin la wadaago waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshadeena Soomaalidu ay u baahan tahay dhan kasta ha ahaatee dhanka aqoonta dhanka waayo-aragnimo dhanka dhiirigelinta iyo dhan kasta waxaan jecelahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogo in aan la wadaago waxyaabaha cusub ee markaan u arko in ay ka faa'iideysan doonaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar xaqiiqdoon TV sidoo kale sii gudbiyo saaxiibada iyo asxaabtaada la sii wadaag wax khayr la ayaan idin wadaa maanta haddii ay baraali ka noqdo waa maxaan idin wadaa omega 3 waxa weeye waa kiniinka aad arkaysaan waxa laga sameeyay ama uu ka mid yahay ka samaysan yahay kalluunka oo kale vitamin ku saabsan oo kalluunka ayuu ka samaysan yahay marka khayraadka kalluunka inagu wadankeena u dhahay wadan qani ayaynu haysanaa kalluun ama malay fara badan baynu haysanaa bad baynu haysanaa ruuxantiina waxaad moodaa in aynan ka faa'iideysan inagoo intaasoo dhan haysana khayraadka noocaasoo dhan dad baa jira lafa xanuun qaba dad baa jira wadna xanuun qaba dad baa jira dhiikar qaba dad baa jira balwad leh oo ruuxantii sigaarka cabo oo kale waxyaabo badan xanuuno badan leh waxaasoo dhan kalluunka ama malayga waxaa la sheegay ama dhakhaartu sida ay sheegeen inuu daawo weyn ka yahay oo uu daaweeyo lafa xanuunka jir xanuunka dhan kastaba uu u daawo u yahay markaasi kalluunka ama malayga haddaba omega 3 muxuu yahay omega 3 waxa weeye waa vitamin ama kiniinka aad aragtaan ee yaryar ee ruuxantii loogu talagalay in ruuxantii uu wax badan ka caawin doono omega 3 meel kastana uu yaalaa gaar ahaan qurbaha si weyn ayuu yaalaa haddii aad ku sugan tahay wadamada qurbaha Yurub iyo America omega 3 waxa uu ku leeyahay faa'iidooyin badan lafa xanuun haddii aad iska dareento ama lafuhu ay ku xanuunayaan daawo ayuu ku yahay haddii markaasi uu ku hayo ruuxantii dhiikar wuu dejiyaa dhiigga macaanka sidoo kale uu la dagaalamaa run ahaantii sidoo kale dadkan cabba sigaarka oo kale laabtooda ama xabkooda oo dhan wuu nadiifiyaa omega 3 marka ay ruuxantii isticmaalaan sidoo kale wuxuu wax badan ka taraa jirka oo xanuunka oo subaxii aad ka soo kacaysid adoo jir xanuun ku hayo adoo daalka oo kale lafa xanuunka oo kale omega 3 fitaminada ku jira ka dhex muuqda horta waaba kalluun ama malay baa laga sameeyay oo waxa weeye vitamin malayga ah oo la isu soo ururiyay laakiin wax weyn dad badan ay iskaga arkeen in markaasi ay iskaga gartaan haddii lafa xanuun waayo lafaha ama jidhka waxaa jira meelo badan oo iska galaan jidhku taas oo uu ku safeeyo uu safaynayo ama uu u yahay saliid ahaan waxa weeye waa saliid waxa kan aad arkaysaan waa saliid weeye saliid buu ka samaysan yahay malay ah marka looguma tiragelin in banaanka la dhigo marka aad soo iibsatid waa in aad talaakada gelisaa ama meel qabow ah aad gelisaa si markaasi uu qabowga ugu jiro haddii kale uu uraya ama uu qurmaya ama uu xumaanaya oo looguma tiragelin in banaan la dhigo marka talaakada ayaad gelinaysaa mar walba oo aad doonaysid haddii ay baraali ka noqdo aad isticmaashid dhowr waqti ayaad isticmaali kartaa malaha hal mar waqti oo kale qadada ayaad isticmaali kartaa quraacda ayaad isticmaali kartaa cashada ayaad isticmaali kartaa saddexda waqtiba waa isticmaali kartaa omega 3 waana vitamin la hubiyey oo ah jirka bini'aadankana si weyn ay ugu baahan yihiin marka aad gym aadaysid dadka gymka aada weliba ruuxantii waxa ay aad iyo aad ruuxantii ay ugu baahan yihiin kan oo kale sidoo kale adigaagan TV-ga daawanaya mar walba guriga jooga ma iska dareentaa marka aad kacdid ama aad istiraahidid kac adigoo TV ku fadhiya lugaha ku xanuuna waxaasoo dhan ayuu kaa caawinayaa omega 3 sidoo kale ha ilaawin vitamin D plus key labo waa vitamin D-ga oo isna ah mid ka mid ah nafaqaynta jidhka marka waa ku mahadsantihiin daawashada iyo waqtiga qaali aad u horteen anigoo cabsi shibinay la socodsiinayay
ha iloobin mar walba isha ku hay lana soco omega 3 meel kastana waa yaallaan waa mahadsantihiin